رمضان أقبل بعد طول غياب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد والله ليال إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله بشي بركة سنيد يا رمضان عافمات قبل نقول قرسي الحمد لله بين لنا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله sidoo kale waxaynu allah weydiisanaynaa inuu caafimaad qab inoogu dhameeyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigo kuwa acmaal wanaagsan oo ilaahay raali gelisa la yimaada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo baynu allah weydiisanaynaa. intaa dabada walaalayaal waxaan in yar tilmaami doonaa dhowr axaadiis oo tilmaamaysa fadliga bisha ramadaan siyaamkeeda laga helayo. soomka bisha ramadaan aynu soomayno axaadiis inoo tilmaamaysa fadliga iyo ajarka aynu ka helayno. ugu horreyn waxaynu wada ognahay walaalayaal oo aynu wada garanaynaa soomku inuu yahay waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala ina saaray. ilaahay baa inoo sheegay qur-aankiisa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku waajib yeelay oo idinku faral yeelay soom sidii loogu faral yeelay ummadihii inaga horreeyeyba. markaas sidaa u garato xikmaddan waxay tahay loo faral yeelay soomka lacallakum tattaquun si aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsataan. markaad arrinka aad garato inuu soomku waajib uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu waajib yeelay waxaad ogaanaysaa haddaba xadiisul qudsigii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ee ahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilayhi mima aftaradtuhu. addoonkaygu iguma soo dhowaado shay oo aan uga galgacayl badanahay oo aan ugu jeclahay ilaa waxaan ku waajib yeelay mahaane. markastoo waajib ilaahay ku saaray faral ilaahay ku saaray aad gudato la timaado ilaahay baa subxaanahu wa tacaala aad u dhowaanaysa. waana waxyaabaha ilaahay ugu jecel yahay ee addoommadiisu ay ugu soo dhowaadaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayo waa waxa ilaahay ku waajib yeelay faralka marka ay gutaan. soomka waxaynu wada ognahay inuu yahay faral iyo waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala ina saaray. markastoo aynu gudanana ilaahay bayna subxaanahu wa tacaala u dhowaanayna. arrinka labaad xadiiska labaad ee tilmaamaya fadliga iyo ajarka laga helayo soomka xadiiska abi hurayra uu soo warinay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih. qofka ramadaan sooma isagoo aaminsan oo iimaan leh wujuubnimadeeda waxtisaaban ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaga ajar dalbaya gufira lahu maa taqadama min danbih. dembigiisii wixii hormaray ilaahay subxaanahu wa tacala waa ka dhaafaya. arrinkii hore muxuu ahaa ilaahay baan subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanaynaa oo ilaahay baan igu jeclaanaya. arrinka labaad waa maxay dunuubteennii hore ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaafaya. sidoo kale xadiiska saddexaad ee kusoo khatimaya walaal wuxuu yahay xadiiska sidoo kale xadiisul qudsiga isaguna ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayo kullu camal ibni aadama lah. camal kastoo ibni aadamku uu sameeyo isagay u sugnaatay bimacnaa jazaagiisii abaalmarintiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu sheegay ila asiyaam soomka mahaane. soomka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ana ajziyun bihi anaga addoonkayga yacni ka abaalmarinaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku khasisay soomka inuu jazaagiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad isaga u sugnaatay uu qariyey. wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay aniga ayaa addoonkayga ka abaalmarinaya. qof kastoo sooman oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii u sooman jazaagiisa iyo abaalmarintiisa ilaahay bay subxaanahu wa tacaala agtiisa ahaatay isagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga farxin doonaa. walaalayaal waxaan kusoo gabagabaynayaa in walaalaha khayrka aad u shargaraysaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa dunuubteena inuu dhaafo. ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkeeda iyo ajarkeeda iyo xasanaadkeeda kuwa guta ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo.